kow inaanay aqoon u lahayn maamulka lacagtaada record garayso. Lacagtaada record garayso macnaheedu waxa weeyaan waa in senti kastoo kaa bixiyo senti kastoo kasoo gala aad garanaysaa sidii kuu soo galay siduu kaaga baxay. Waayo dhalinyaro badan lacagta markay soo gasho way isticmaalaan way wadaan. then hadhow buu ka odhanayaa ganacsigii ma kobcayo, hadhow buu ka odhanayaa ganacsigii waa kacay, hadhow buu ka odhanayaa like kiradii bay ku adkaatay inaan yani xataa iska bixiyo sidaa kale inaan shaqaala yani lacagteeda iska bixiyo. Marka waa in aad yani horumaraysaa financial literacy waxa la dhahdo amba aqoonta maamulka iyo maareynta lacagta. Tana si gaar ah inta badan mentorship lagu bixiyaa oo qofku uu u baahan yahay isagoo shaqaalan u baahan yahay isagoo waxa weeyaan mulkiilayaal u baahan yahay yani ganacsi bilaabay. Financial literacy gu waa shayga ugu weyn ee inaad ka ilaaliso. Shayga labaad waxa weeyaan inaad ka ilaaliso halista yani inuu businesskaaga si xaaraan galo waayo adduunkaaga aakhiradaada baad kusii kartaa. Shayga saddexaad waxa weeyaan inaad adigu yani amba ka caadsido amba aad ka niyad jabto amba somehow yani gacmaha ka laabato ganacsigaaga. Waayo ganacsigaaga adigu kugu ekaanaya hadba sidaad